ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، وحارنتي هذا قعدوا دارنا يا ميزكن أو ركبا أو علماء أو أن نقاري كنا سوفرستان صالح ساوي حضر فان كارية إن أنقوا طلابة أما حتى الطلاب أنا هين الكسر دويان قعدوا دارنا يا رنتي مكان كذا يا مقال كنا بدنا مليهن. هذا نسوق بموضوع ولا ليال ماشى كقرن runtii waa mowduuc aad u malaysid ahmiyadiisu inay tahay waxa loo qabtay mu'tamarkan ama waxaynu oran karnaa qofka muslimka ee muuminka ah ee rumaysan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam in ilaahay uu soo diray in shaqadana ay tahay shaqadii nabigu hayay calayhi salaatu wasalaam. qofkii ku walwalaya ama doonaya janno ilaahay inuu galo ama nabi maxamed inuu arko calayhi salaatu wasalaamna waa in shaqadiisii uu bartaa ka bacdina shaqadiisii uu qabtaa. bal nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka duwan ambiyada ilaahay oo dhan oo ilaahay soo diray oo ka doortay ummadda inteeda kale buu wuxuu shaqo uga dhigay arrintan diinta ilaahay inay gaarsiiyaan. haddiiba ilaahaygi ummadda abuurtay dadka khusuusta oo doortay shaqadooda ay tahay arrinkan waxaad garanaysaa ahmiyadda uu leeyahay. laanna alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacala walaqad bacatnaa fii kulli ummati rasuulan an icbudu allaha wajtanibu taaguut. waxaanu ummad kasta u dirnay rasuul ama nabi shaqadiisu ay tahay in dadka uu ku yiraahdo ilaahay kaliya caabuda inta kalena iska daaya. shaqadaas waxay walaalayaal shaqadii dadkii ilaahay uu doortay u ahaa waa shaqada alla nabigiisa uu ku amray calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha ar-rasuul balligh ma unzila ilayka min rabbik. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintan faafi oo gaarsii dadka kale haddaadan gaarsiinna shaqadii lagu diray ma aadan gudan. nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam markuu diintii soo gaarsiiyay ummaddu wuxuu amray balliquu cannii walow aaya war wuxuunba ha ahaatee aayadba ha ahaatee wuxuun ummadda iga gaarsiiya. saxaabadiisuna waxay ahayn walaalayaal shaqada ugu badan ay qabtaan in diintan ilaahay ummadda ay gaarsiiyaan. kuma xidhnayn shuruudu ma ahayn qofku inuu 5 sano 4 sano diinta baranayay, bal saxaabada waxaa ka markay soo islaamaan oo tawxiidka qaataan inay tegi jireen oo ummadda tawxiid gaarsiin jireen. shaqadan marka walaalayaal waa shaqada noocaasa oo sharafta iyo qiimaha leh laana shay kasta wuxuu qiimo ku leeyahay waxa la sameeyay waxa uu yahay cid looga dayanayo. waa shaqada ilaahay uu soo saaray anbiyadiisa salawaatullaahi calayhim wasalaam. anbiyada ilaahna ay sii amreen ummadda diinta gaarsiiyaan. waxaynu oran karnaa marka walaalayaal waxa la sheegayo nabigu leeyahay gaarsiiya waxay u qaybsantahay 3 qaybood sida uu sheegayo sheekh ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتاب رياض الصالحين. 3 qaybood buu qaybsantahay oo wuxuu leeyahay waxa laga qaadanaya aayada Alle هي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. wuxuu leeyahay الشيخ رحمة الله عليه شيء ugu horeeya qofka laga rabo waa الدعوة إلى الخير لأن أنت ليس أمرين إن waxa la amro wanaaga muxmaanta la reebo waxa laga horeysiyay ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وإن لها لا دد دين تبرع صلاة سونكي حجكي أحكامتي تاسوات كوريسا أمر المعروف عن المنكر. وكل حاجة مركز شيء قال لبعضه إن وناجي لأمره حماتنا للريبه مركز محوية هي شيء له معروف كما وناجي الأمر يو علماء محكي إلى هذين نهي كما شيء له محكي إلى هذين وحليه المعروف وحاله إلى هذا اسم جامع لكل ما عرف به من طاعة الله وتقرب إليه والإحسان إلى الناس. وحوي شيء كستا أو كل من آية وحدة عاد إله سبحانه وتعالى لو قد وانيو أما إحسان لو قسم من آيو دوم مديسة. حمانا وحالها كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه. حمانا وحالي هذا واحد النهي وحالي هذا منكر وحالي هذا شيء كستا أو دينتنا أما شريعة إنه أي حميسي أما أي وحن كشيكتي أو يحرمت أمة لغريابي. وحشو عثيمين لي حكوس أوروريسا فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. معروف حالي هذا شيء كستا أو شرعي جينو وكشيغي إنه وحفي عنيهي ونقري أدو مديسة حق فعلك أي قولك اللي بضبا أما حق مغطي حق قرصون انتبع. إنها اسمك حتمامين ولا ليال معروف وحويه إنه أجانو أنت أنا سمين كورا ما إننا أمرين نهي يقولنا أنت أمة كريم محيي إننا أجانو وحمرك اللول إليه علماء صدح شرطي
أما صدح أركان بوكاكو بين هالشيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدح أركان وحويه إن له ولا وحى إله اللي ويري وحدك اللي ويري محيهين قفك ويري عدة اللي ويري صدح حسد وشاد ركني ويري عدة دك ويريسا وحي ويريسا عدة اللي ويري تامرك وحلمد الله شيء مدى اللي ويريه وإنه شيء قان وتوحيدك إلهي يوحي كرتمة توحيدك أقوهرية وحي كرتمة عباداتها بل لو ويريه عدة دك ويريسا وإنه هذا قف مؤمنة إلهي رميسان دينتي سيغانا وحال لو ويريه دين تقف كستوجاهي لا مقالة صدح ركن ميكوكو بنتهي وصدح على سو قدبه وحال لو قدبه شروطها قف دك ويريه محيهين ما كتنا قفته ويري شروطها laga rabo maxay yihiin Sheekh Uthaymeen wuxuu leeyahay kitaabka Saalixiin ku sheegaya shardiga ugu horeeya waxa weeye an yakuna al-insanu 'aaliman bil ma'ruf wal munkar qofku inuu kala garan kara maxaa xun maxaa fiican inuu dadka u yeedhin waa inuu cilmi u leeyahay ama aqoon u leeyahay waana shardiga uu leeyahay nabigeena alayhi salaatu wasalaam quraan ku leeyahay qul hadhihi sabili ad'u qul hadhihi sabili ad'u ila 'ala basira كان واجدكيغي waxaan umada ugu yeeray ala basira ala cilmi qofku inuu aqoon u leeyahay waxa kamida dhibaatada ay keento qofka haduusan aqoon umada u sheego xadiiskii macruufka ahaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam ninkii saxaabiga ahaa ee habeenkii intuu u baahday inuu qubaysto isagoo xanuunsan uu ku yiri saxaabadii qaar war xanuuna waa ay hayaabiyuhu waa qawiyuhu sidee yeela waxay ku dhaheen anagu kuma hayna xal aan ahayn in qubaysato wuu qubaystay dabadeedna wuu dhintay markaas nabigu wuxuu leeyahay قتلوه قتلهم الله ويدلين إلهي هدله وحاكفلنا وكلي عديس وحبا قرانين إنهم مدى ويديان مركا أحيانا قفك هدوس علم الله ولا ليال وحاكين يسا وحايمان يسا إنه كانوا نبكى بلا نبتي هاري سيدا النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله ننترن وصحابية والورنكر ورقبوغا مقوي سنكسا وحنون باقي سكاكو قبيسو فوحيدها كماها إن حلانا هين قويستد markuu qoystana wuu dhintay nabiguna aad uga xanaaqay calayhi salaatu wasalaam ilaahu habaarkii qataluhu qatalahumullah waxaana keenay walaalayaal qofku isagoon cilmigii lahayn ama aqoontii aan lahayn hadud muhammad inuu u yeero wuxuu keenay dhibka weyn shardiga labaad waxa weeye walaalayaal qofka shayga wax amraya ama wax reebaya waa inuu aad isaga hubiya waxaan wax jira ma yihiin لأن الله وحكله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وذلك المؤمنين تاو وحااد وقفقات المرها وحل إلى هذا حديث النبي وحكله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم هذا ظني قبل كيس بيان بنغضة مرك أنت هذا أمر كان أمرين أما هذا نهي قريبين وإن أذهب ستا شيء كان شيء كذا ما يهورته قف كان حمانة المكوس جاي هاي أما هناك كان مكتجي وحاكله دل ولا ليال حديث كي معروف كها فصحيح مسلم كسجنا وحليه هاي أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وحاصوق لي مال المساجد كي نبي جنن نبي إله وخطب بينيا فجلس ولم يصلي تحية المسجد نك وسكفر يستي من أوتو كان صلاة المساجد الله قلت لك إن لو قلت كم قال صوق قاله مكاس النبي وحكي عليه الصلاة والسلام أصليت ورمتكتي مركاس وحكي ما أنا تكن النبي يقول قم فصلي ركعتين استاغوا وحاتك تعالى ركعه محل شاهدك وحوي النبي يقول نك يكون موسى ده استاغوا تكو إلى ويدي ورمتكتي مركو بصدي النبي عليه الصلاة والسلام إنه ستكن باوحوا أمرين وتكذو تاسو حد دليل وتولى ليال شيء أنت هذا أمرين أما هذا ريبين وإن أوقات محا حقيقة يسوتها قف كانوا ونا كان مكتج على أمرتي ده أما حماة الملاي ما كريبتي ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أو استجا وحي إلى وحلا وشجعي وسؤالك ورمرنا ولا ورني ومتكتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام موسى قرنا إن كانوا ملك وكسوت تكن فاشلين عكلا يينو سنتكن أنت وسونا جامر النبي عليه الصلاة والسلام وحكى ورمريي إن ورد سؤال شويدي وأنا أرين كان إلا بصده إن بدن ومسلمين كان هاي صلاة ليال وبعتنا يستحقون سنتهاي ملا بينا يملا أنشين يظن سوء ظن سوء أنا أمد مسلمين على غير أبي إن قف مسلم ملح الله ملايو لأن قف مسلم كأصل كيسة وحلا مسيا إنه براء دم هاي إنه سنذيف هاي إلى الله لو حجة أو عدل وارك مويان أرن كان ملها إن قال يستجوه بيو وأنا واحد أقول بدن ونجا إنه على ود كدرشة محمد كدرشة إن ملا ملايو مركو إن ولا ليال هذه إنه أسقنا واحد أمر ربي إنه واحد سبنا يهين شرط صدق هذا الحليش عثيمين ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه هذا منكر ريبيسو
وإن يسنكرنا المنكر كرئيس متكوين قاسوا هذا حلا يوقفها وحكته جاي صلاة السنة هاي حمانا وإن كذا حيسا حتى الله هذا شقفك صلاة أمر حديد كذا لنا وين أسكتك ابن تيمية وحقص رحمة الله عليه بريد تتارك اللي دقا علمي باو حيسومر إن من خمرية عبي ومالكو حيران مركاسا وحيد معان سحقات قارة ضدك لسع ابن تيمية إنه يكون خمرية كوانيان مركاس حيس كده وحبا كوانينه محايا إلي هذا كوان إنسان أنت عادي نقدم دجالك السوقي وأنا لا دجال علميان ربتي كوين بإيمان سميش الوداي مركو قف كوين وقياسي كرا شيئا أدري وسمعناه ثم هاي نتاعي أنا ودني الله كم تلي وحنا نورنا لا وإن وحنا أيهن شيء مدة وحطرايا حمانتي أدري وسميت كوين هذا إيمان يسوع وين الفرح كقاعدة شرط الأفراد وحليش وعثيمين رحمة الله عليه حاول يسوق خلاف سنة هذه قفك حمانت ريبية أما وناقة أمرية وإن يسوق مركور النظيف وكيه لأن الشيء النظيف كأهين وعليه كوجرة ذلك من ريبي كتير شرط قاسي علماء يسوق خلافين ما له شرطنا يا قفك الدعوة قارسين وسوا شرط مايو من عثيمين وحليه هاي وعسيدة سحلا الله شرطنين لكن أيها الإخوة قرآن كإله وحكوس عروري آيات فربضن يا حديث فربضن أولوت الماميو قفك يسوق وناقة أمريسنا على إيمان وحكم الآيات قال كل هاي في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ورمحمان تاريسا وناقينا نمه الماميسان إذنكم ولي بأق إن الحمان تكتشتنا فلا تعقلون من عقل لهين وحكم الآيات قال كل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وذلك المؤمنين تأهوا محاح إذن كل عاي أو واحد دهيسان أيضا سمعينين ومدي وناك بأمرسان وناقي للأيمان ميسان وحالات تسكوين هذا عرو إن قفك وناق وأمره إسنه وسن الأيمان نبي الله الشعيب عليه السلام وحكم هذا الذي سي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما دون أي أمضي هاي وحي إذنك أنك ربنا الله يماده وحال دوني ولا ليقفك مسلم كاه داعية وحان أقومهم سننك أمد الدين تقارسين إياه دقن كيسي فعل كيسي نوعوي هاي لأنه علمده وحيد هذان وحافك لغا شيغو waxa ka horeey waxa ficilkaaga laga arko markii qofku madiinta u yeedhaya waa in isagu nadiif uu ka yahay wuxuu umada ugu yeedhayo nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wa hadiis saxiixa aakhira waxa iman doona qofkii umada diinta u sheegayay ama metelay diinta ilaahay oo naad dhixi ku wareegsanay markaas umadu waxay ku leeyihiin warsoomati ninka xumaanta naga reebi jiray warsoomati ninka wanaaga amri jiray maxaa naad ku galiyay markaas wuxuu leeyahay waan amri jiray wanaaga lamaana iman jirin xumaanta waan ka reebi jiray aan la iman jiray taas waxay taas walaalayaal markii inay shay muhiim tahay in dadka ducaada ama qofka diinta faafinaya shardiga inuu isagu in badan isku dayo wuxuu umada amrayo oo wanaaga inuu la yimaado waxa umada uu ka reebay xumaan inuu ka haro sidii uu sameeyay Umar ibn Khattab rahmatullahi radiyallahu anhu warda marka uu doonayo umada inuu wacdiyo marka hore wuxuu umada u sheegayo wuxuu ku soo sameeyay jiray gurigiisa wuxuu amri jiray ehelkiisa intuu isagu mas'uul ka yahay markuu isagu soo sameeyay ficilkii buu umada amri jiray inaga laakiin musiiba in haysto walaalayaal xumaan kasta oo qof bini aadan oo lahaa laasima ka Soomaaliyiin waxa maanta lagu hayaa dadka ahlu diinka ah haday beentii tahay haday khiyaamadii tahay haday amaan xumadii tahay haday qabiilkii tahay haday xukun jacaylkii tahay haday xoolihii adduunkii tahay intaba waxa lagu hayaa dadka ahlu diinka ah hadii qofkii diinta matala oo sida noqdana umada cid uma harin waxa la doonaa marka walaalayaal inagu inuu ku sifowno diinta ilaahay inaynu ilaalino si aynu umada u gaarsiino runtii ma sahlana qofkii inuu qaado mas'uuliyadda Nabi Maxamed alayhi salaatu shaqadiisa ahayd inaguna marka bedelka alla nimaadno waxaan arkaysaa maalan gabdhaha muxaajabaadka ama meelaha rasuul ka dhacan mararka qaar ku xaasilad haya xijaab watay yaa wadaad ahayn laana kulli waxa uu labisana dhar gaaban asalku muxuu yahay marka qofka daaciga wuxuu ajir ka sugaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu amaan ka sugaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ka sugaa sarreyn iyo koreyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin inagu markii aynu raadino adduun dalabki gabadha quruxdeeda in la arko labiskeeda in la arko dahabkeeda in la arko hadhowna dadka ay noqdo ducaada diinta u sheegaya shaygaan caarun calayk suurtagal ma waa in shardiga loo fiya qofka diinta u sheegaya inta uu awoodo inuu isku dayo inuu isagu la yimaado shuruucda diinta مثلا waxaan xasuustaa ayo alikhwa anoo diika joogo meel Nairobi oo dugsi quraan dhigaya baagawar baa itimi dirac wadato waxay tiri macallin waxaan rabaa dugsiga quraan ka barto laakiin gabadhii waxay ugu dhahan hadaa xijaab soo qaado ma soo gali kartid dugsiga quraanka dayib adii marka diinta dadka ugu yeedhay mise diinta dadka cayris
adiga sayaa ku yiri adiga kaliya muslima oo diinta iska leh waxaan ku yiri walaal dugsigan quraanka diinta ilaahay lagu bartaa imow gabadhii maanta waxay joogtaa Mareykan iyadoo gabadha ugu wanaagsan waxaan ka marka walaalayaal qofka ummadda amraya diinta waa in laga helaa wax fara badan oo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ummadda inuu soo jiidan karo wixii xumaan uu ka fogaada inta aad ku gudbo walaalayaal quraanka ilaahay waxa ku saaray subhanahu wa ta'ala meel fara badan oo amrayo qofka muslimka ama daaciga ah ama matalaya nabi maxamed alayhi salatu wasalaam inuu ka shaqeeyo diintan ilaahay xaqana uu cadeeyo xumaantana uu reebo waxa kamid ah Allah qowlkiisa subhanahu wa ta'ala fasda' bima tumar wa a'rid 'anil mushrikiin nabi maxamedow cadee waxa diinta ah oo amarka cadee mushrikiinta iyo xumaantoodana ka jeenso amarka nabiga la siiyay alayhi salatu wasalaam qofkii mu'min ah oo nabiga jecel shaqadiisii maanta waxa weeye in diinta la cadeeyo oo la waadixiyo sidii nabiga loo amray alayhi salatu wasalaam waxa kamid ah walaalayaal ilaahay wuxuu tilmaamay dadka mu'miniinta ah inay yihiin dad isjecel oo isku dhex jira laakiin sifa la siiyay wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'dhum awliyaa'u ba'd dadka mu'miniinta ah waxay weli isu yihiin kuwa kale mu'miniinta maxay sameeyaan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar waxay ku sifaysan yihiin xumaanta iska reebaan wanaagana waa isamraan laakiin maanta waxa la hayaa mu'miniin saaxiibo ah oo isjecel xumaanta ka reeba dadka inta kale iyagu la xumaanta iska reebin qofkii wada xamanayaan qofkii wada khiyaameynayaan qofka maanta wax laga sheegaya kaasi ma aha sifadii mu'miniinta waa sifadii Allah uu ku sheegay yahuuda Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay kaanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu yahuudu waxay ahaayeen kuwa aan iska reebin xumaanta ay sameynayaan aniga waxa laga yaabaa inaan maanta idin sheego xantu inay xun tahay qabiilku inuu xun yahay adduunku inuu xun yahay in la raadsado mansabka madax inuu xun tahay marka banaanka loo baxana aan asxaabta dhex fadhiisto inaan intii baanu ka sheekeeyo bal waxa dhici karta xitaa in masaajidii loo soo guuriyo arinkii ahaa wixii banaanka yaalo xumaanaha ama qabiil ha noqdo ama xan ha noqdo ama adduunyo ha noqotee taasi ma aha sifada qofka muuminka ah sifada alle wuxuu ku ceebeeyay oo maalin kasta aynu ka habaarnaa yuhuud alla uu leeyahay wal maqduubi calayhim kuwa loo carooday waa kuwe waa yuhuud maxaa loogu carooday cilmiga iyo yaqaana kuma isticmaal falin ilaahay subhanahu wa ta'ala ma kala jecla qofka bini aadanka sida uu yahay laana isaga abuuray laakiin wuxuu ku kala jecel yahay amalkiisa iyo sifadiisa alla waa tuuray subhanahu wa ta'ala inna allaha nawatu leeyahay inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin inma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ilaahay ma fiirinayo shirkiinu sidoo qurux badan yahay ama xooga uu leeyahay masuuradiina ilaahay qiimo lama laha laakiin ilaahay wuxuu qiimeeyaa qalbigiina iyo amalka saalixa hadaa uu shabahado dhaqanka yahuuda sidii yahuuda lagu la macaamilayo laana dhaqankaas ah inaan xumaanta la iska reemin bal la isu kaalmaysto bal laga soo guuriyo banaanka masaajidii la keeno waa dhaqan muslimiinta aysan lahayn qofka ku sifoobana shibho waxa ku jirta sifadii yahuuda sida ibn taymiyyah uu tilmaamayo uu leeyahay dadkeena cibaada ana waxa ku jira qayb kamida qaybtii nasaarada dadkeena cilmigeena waxa ku jira qayb kamida qaybka sifada yahuuda wuxuu ku tilmaamayaa marka raxmatullaahi alayhi ibn taymiyyah qofka ilaahay caawiyo cilmi la'aan inuu qayb ka yahay sifadii nasaarada Allah ku maaratay xumeeyay qofkii cilmi ila ku amal falina inuu qayb ka yahay sifadii yahuuda lagu Allah subhanahu wa ta'ala ku canaantay sifada marka muuminiintu inay wali isu yihiin waxa laga garanayaa inay xumaanta iska wanaagsan ay samraan waxa uu leeyahay ibn Uthaymeen raxmatullaahi alayhi aayadan oo shaqadani khaas ma aha raga kaliya laana ala wuxuu leeyahay wal mu'min wal mu'minaat dumarkuna shaqay ku leeyihiin xumaanta inay amraan wanaag reebaan bal meelaha qaarkood dumarka laga rabaa inay wax fara badan ka shaqeeyaan guriga iyo caruurti عائشة وحيرة رضي الله عنها حديث ابن ماجه وسورنايو مما البانه ku حسن كدغايو waxay leedahay nabigu xili alayhi salatu wasalaam murru bil ma'ruf wa nuhu 'anil munkar qabla an tad'u fa yustajab lakum dadiyahu wanaaga amra xumaatana reeba inta aan la gaarin inaad ilaahay baridaan oo ducada idinka ajiibin laana hadii munkarku bato oo xumaanku bato oo fisqigu bato waxa yaraanaya xalaash in la quuto ka bacdina waxa yeelanaya ducada ajiibo marka in wanaaga la amro xumaanta la reebo nabigu wuxuu ku tilmaamay alayhi salatu wasalaam inuu yahay shay ay ku xiranta ducada in la aqbalo laana nabiga alayhi salatu wasalaam iyo saxaabadiis marka ay fiiriso ama ay weydiiyaan rasuulka maxaa ducada lagu ajiibaya nabigu wuxuu tilmaamay qofkii inuu xalaal ku noolaado xalaal quuto xalaal ku hadlo xalaal uu ku shaqaysto baa waxay ahayd waxa lagu helay ducada in la ajiibo walidaalka waxa dhicay in been isweydiino
duca kasta oo nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam iyo xilli kasta ducada la ajiibo waan ducaysanaa ducadani lama aqbalo ciladu maxay tahay ciladu waxa weeye sifadii waxayna haysay yahuuda oo waxayna amrin wanaaga ama waxayna reebin xumaanta waxa kamida atharka culimada yiraahdeen dardaa waxay leedahay man wa'ada akhahu sirran faqad zana ومن وعظه علانية فقد شانه qofkii walaalkii u naseexeeyo oo wanaaga u sheega si qarsoon oo aan ahayn la buunbuunin banaanka la geeyo wuxuu qurxiyay walaalkiis waxay tilmaamaysaa umu dardaa xumaanta oo la iska reebo inay tahay qurxin nabiga uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka muslim qofka wuxuu yahay muraayad marka doonaysa in la bisato banaanka aad u baxdo waxaad isku fiirinaysaa muraayada si wixii ka qadaan u saxdo qofka muuminka walaalkii wuxuu yahay muraayad oo wixii xumaanu ka reeba mana ceebeeyo waxay mudardaa marka leedahay wanaaga oo la amro iyo dadka loo naseexeeyo waxay ka mid tahay ummadda in la qurxiyo laakiin dadka oo la ceebeeyo banaanka laga sheego gabadha sidaas ay samaysay wiilkaas sidaas uu sameeyay shaqal sidaas uu sameeyay waa ceebeyn maana sida saxda ah xasan basri wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi murru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar war wanaaga amra oo xumaanta reeba inta aan la gaarin idinka in la amro wanaaga iyo xumaanta لأنه قفك مسلم كأحدث داعين نقطة الدين توشيعايا استجا وحلو شيعايا حمانتي حتى عدو نقفك الدين توريلايا أو هربودايا أو كشقينايا أديك وحلو يا حمانتي إن بدنا وايد علي ما يفرض يكسر أنت هاي قفك كلما وناقو شيعايا استجا حمانتي لو شيعايا كلما أو حشوده استجا حمانتي لو شيعايا بحينه كحشونا ولا ليال ودنا كانوا تونو حلس أمريا وحكست أو صار الدين تلاهي أو كفريات iyo shirkiyaad iyo jariima la ismraya iskoolka lagu amraya meelka ku lagu amraya maxaa adiga ku diiday inaad diintan ilaahay amartido sheegtid waxa kamid hadalada uu yiri Sufyaan ath-Thawri rahmatullahi alayhi idha umirta bil ma'ruf hadaad wanaag amarto qofka muuminka ah waxaad adkeynaysaa xoogiisa iyo awoodiisa hadaad munkar reebtana waxay carageynaysaa qofka munaafiqa marka wanaag amarto waxa xoog yeelanaya oo awood yeelanaya dadka muslimiinta ah laana shaygan ku midaysan yihiin waxa ku caroonaya oo dacala galeysana qofkii munaafiq ah oo doonayay xumaanta iyo munkarku inay faafaan bal ayaa la ikhwa salafka waxa ka sugan marka dad waxay oran jireen hadii qofkiin xumaan amrayo naftiisa waa inuu ku adkeeyaa sabirka ajirkana oo ka suga ilaahay subhanahu wa ta'ala sida intaas waxay tilmaamay marka walaalayaal ahmiyada quraanka iyo xadiiska soo aroortay in la amro wanaag xumaantana reebo waxaan ku soo gabagabaynaynaa oo muhiim ah sifada laga rabo qofka doonaya inuu wanaag amro ama xumaanta uu reebo waana mixwarku meesha uu ku wareegayo mixwarka arinta oo wax ku wareegaysa ninka daaciga ee metelaya hadalkii ilaahay iyo hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ummadda wuxuu sheegaya sifooyinka laga rabo maxay yihiin sifada ugu horeysa waxa weeye an yakuna raqiqan ladifan bima ya'mur wa bima yanha wa inuu ahaado qof jidcisan oo dadka u naxariista haduu doonayo ummadda inuu diinta gaarsiiyo nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiis Aisha ma kana rifqu shay'an illa zana wala naza'a min shay'in illa shana ma jiro shay marka la sameeyo wanaag la raacsiiyay iyo jidcisanaan illa uu qurxoonaada ma jiro shay marka la sheegayo xumaan iyo adeeg la raacsiiyay illa uu xumaada marka shayga wanaag la raacsiiyo iyo jidcisanaanta shay fiican oo qurux badan buu noqdaa shayga xumaanta iyo adkaanta raacana wuxuu noqdaa shay xun waana meesha nabigeena calayhi salaatu in badan lagu tilmaamayo فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نبي محمد ونحاريس اللي حق سكاء أوجد بين مؤمنين تكوش الإحسان هذا هذا حاله إن أذقنا وكعرض لهاي قف مؤمن كه قف الإحسان أو دخترة أو مدى داوين آية ودر قادنا آية رتو حميل آيوي لكن هذا كاي دين خاصة ما كل شيء جاية خاصة ما كل جيلنا يا تاسماه نسبة قف مسلم كه بل نبينا وحلوله عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما أنا دريني محمد إلا نحريس عالم كأردنا وتهمويان قف مسلم كأنه مثله بس النبي وتعنا عليه الصلاة والسلام صادق الأبعاد أن يكون مخلصا قف كأنه مركو حشير أيوه إلهي أجر كذلبه ويوسم بناء أمانان أما عيء كدايان أما يحول السيام يسوق فكرين لأن شقادا ولا ليال حول لو مهله أمان لو مهله وحالوه لا أجر لأكتسا قرآن ما حكوا صاري إن لو سعد علينا يا ضل هم أذن ويدي سنة أجر كين إله ونوع سبحانه وتعالى نيك دون مدة إنه دين تجارسيه
إنه أمانك هلا معها إنه معك هلا معها إنه أمده هرمون نقض معها كلية وإنه إله يقول سبحانه وتعالى سأجرك ويهل لأن نبينا عليه الصلاة والسلام دينت إله والله فافيه وحكوت الماما يا أجري خير فربدن أرنك إخلاص كن وأرنك كينية إن وناجا خيرك أي واحتران أي واحتر ويان لأنه وحليه ابن مبارك وحادعك تعمل إن تسميسه وبورته ولا كهذا إخلاص كأوجس أما عمل فربدن يدار فربدن على سميسه وميل قاري وايوه قلبي رحمتك كثيرته قفك الدوان أمدا أن وحتروا أما دعوا نقضوا قلبي وكحنا هذا إلهي وكلية عدك لها كسون أمان عدك لها كسون كسود ويان شيء يعني وقال شيء النبي عليه الصلاة والسلام من هيسين لو كسود وياه من هيسين لو أمانه وحالو بهانتهاي إن دائما بدرشوا الله على تماده قاب كان حريصي وناق على تماده إيه خلاصك وحكمنا ولا لا يا شيء مهم كأ إن قفك دين الشيء صبر ولا يمادو نني كان دول قال اللهين أما صبر عن اللهين ودين تكمل بحكتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام دول قال كيسة يدبت اللوجي يستوي حلوكتهين مع أنت ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام وتجاي وحكى عن مكة وحول تجاه الكيس وحول ضعيف هذا ضعيفه غير مكة يسوع عيري دين بان وتأي حق يقات الدين هذا يجدي دانا يا أمان قليل النبي عليه الصلاة والسلام من اللي يميلين وحال قدر عرورتي دمر كي نجح على قاضي إلى ديق مدح سكين ملك تسوق عليه الصلاة والسلام إلى أولى النبي وحوس على 2 كيلومتر سواء قرن المال ومراي مغموم سواء ضبول عليه الصلاة والسلام مركز وحليه هاي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أما وحليه وحرتينا يا ذاتك داح يقول لا دبر كودين كسب حتى الدين تنفافية فعلا لو يدعى محمد يكون قال عليه الصلاة والسلام وحكون قال استبدل الضلغات وفك عرب بدن أما حناق بدن أما النفط سوى أرسلنا يو دين تنمم تلك ارتقورها اسكفرسو دين تنحن بعد الصبر ولا ليان بل نبينا عليه الصلاة والسلام حكسون حديث الباني وكسر حياله ترغيب وترهيب كحليه لقد خوفت في الله وما يخاف من أحد وحالي عبسي قليل دين إلهي سيان قفك له عبسي قليل والنبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ولقد أوذيت في الله وما يؤذي من أحد دين إله بل يقول دبي يون عدك الله دبي والنبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ولقد مرت علي 30 من يوم وليلة وما لي وبلال دعام يأكله ذو كبد وحي سمرت ابن ولي عليه الصلاة والسلام صدًا عشو هبين مالنا وأنيق بلال تون نقف عرولت له أما حوالها النقطة من بنالها النقطة وحعنا أن الهلين عليه الصلاة والسلام هذين نقطة عبسي قلين هذين نقطة دبلا دبو هذين نقطة قاسية رفاد انت وحاصل من محمد عليه الصلاة والسلام بل وحليه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ما ينبع وحاد علينا أن آذو قاتشوني مقاسا نقاتشي داد كسكروين مقاسا وحاولت أن محمد عليه الصلاة والسلام waxaan kor u qaadnay caloosheeda marihii saarnaa ninkaas waxa uu xidhan dhagax gaajadu aad kiisan kari waay waqaas nabiga waxaan tusnay عليه الصلاه والسلام dhagax caloosha noogu xidhan markaas nabiga calooshiisa kor u qaaday mise waxa ku xidhan laba dhagax عليه الصلاه والسلام markaas aan quusanay oo aan isogaanay inaan waxba aanan ahayn maadaama nabigeena عليه الصلاه والسلام calooshiisi dhagaxan ay ku xidhan tahay diintan walaalahay waxay u baahan tahay sabir farabadan iyo adkaysi farabadan laana shayga loo socdo oo la doonayo in la helo waa janno ilaahay جنة إلهنا وقال رخيص لكم مهله إيه راح لكم مهله نبينا عليه الصلاة والسلام هدو ليه هيسيد اللي عبسي قليي قفلوا عبسي قليي ما جرته وأنا كنت لك شأنك الدين تفافينا يو إن المريض دون توحينا محمد مري عليه الصلاة والسلام وقالوا عبسي قلين دونا وقالوا قدك دونا وقالوا عيرون دونا وقالوا حيو دونا انتوا القرآن كانوا يقصوا عروتي وأتى إليه فرعون يقوم كسي إن هؤلاء لشديمة قليلون انت موسى يقوم كيسو وان يرى ما يذكر رسطي وانا سوق قبن دونا اتواسوا به بل هم قوم ضالون هذا كما انت يا لو هذا حلقي موسى عليه السلام حلقي نبي محمد عليه الصلاه والسلام قفك مسلم كاه دون داعين نقضه وانه لبس الصبر كليه هذا iyo dulqaadkii adkeysiga u yeesha waxa kamid walaal waxyaalaha muhiimka ah qofku inuu tawaaduco soo diinta faafinaya cilmi leh aqoon leh hadana waa inuu u muuqdaan miskiin oo daciif inuu yahay ما هو قف مسلم كداعية إنه هو أركين أمده كوين هاي كفي عنه كسر يو لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إلى هاي وحنا وحي يدي إن أن تواضعنا وأن أمسكين سكرينه حتى لا يفخر أحد من أحد إلى قف نقف وسكف عن أن كسر على الومهم قف كداعية وإنه كتر جراه
qof kasta hadii qofku ka weyn yahay inuu in badan ka soo sameeyay amal far badan isagoo san sameyn haduu ka yar yahay inuu isagoo yar dambi uusan gelin haduu la mid yahay in habeenkii gurigiisa oo galo istighfaarsado waa inaad u aragtaa qof kasta inaad ka hooseyso adigu aan ka kormarin waxa kamid walaalayaal hadaynu wax ismoodno oo qofka daaciga isu arko madan ka fiican yahay ka khayr badan yahay xadiiska nabigeena kaleey salaatu waxaad garanaysaan labada nin saaxiibada aan walaalaha ahaa ee midkood uu khayrka badnaa midna uu sharka badnaa kii khayrka badnaa wuxuu waanay kii sharka badnaa walaala waxaan wax maana ka had uu ka hali waayay uu ka cilwa ka hali waayay maruu ka qustay wuxuu yiri ilaah baan ku dhaartay ilaah ku dam dhaaf maayo intaas warba wax ku sheegay waa iga qaadan weysay ilaah ku dam dhaaf maayo nabigu wuxuu leeyahay kaleey salaatu wasalaam ilaah baa wuxuu yiri aaway kii ku dhaaranay inaan u dam dhaafeen dambigiisa waan dhaafay adiga amalkaaga waa buriyay qof dhan oo khayr shaqaystay waa wuxuu soo arkay isagu inuu gacantii ilaahay haysto oo qofku raban xumaan ku sheegay karo amaani karo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay adooman ana iskale kuma dirsan iyaga la xisaatanto laakiin adaa ku faantay amalkaagii aad sheegaynaysa waa buriyay ninka dambigiisa waa dhaaf taas ixtiraamisa walaalayaal inaynu isu aragno inaynu tawaaducno laasiima dadka ducaada haday isu arkaan ummadana ka sareeyaan meel kale joogaan laga dambeeyo la tixgeliyo sax ma hasaas la nabigeena kaleey salaatu wasalaam dadka masaakiintu wax la cuni jiray la fariisan jiray raaci jiray miskiin buu ahaa salaatu wasalaam masaakiintu jeclaa qofka daaciga ah lama rabo inuu ku sifoobo kibir iyo isla weynaan bal waa in laga helaa tawaaduc iyo miskiinimo laga helaa waxa kamid walaalayaal waxyaalaha muhiimka xusnul khuluq qof muslimka daaciga ah waa in ku sifooba akhlaaq wanaagsan han noqoto furnaantiisa han noqoto ilka cadeyntiisa laana waa nabigeena kaleey salaatu wasalaam halka hadlayaan nin kasta wuxuu leeyahay waxaan u maleeyay ummadda inuu iga jecel yahay aniga kii la arkaba muxuu saagu maleynaya nabigu qof kasta oo musku soo arbaxa wuu qosli jiray ay wajigu furi jiray wuu ilka cadeyn jiray markaas nin kasta wuxuu sidaadaa nabigu muddo ka jecel yahay hadii sifada aad walaalayaal qofka daaciga oo qof kasta ka soo arbaxa muslima salaan iyo maartay afka wajiga u qurxiso aad ilka cadeyso laakiin caro iyo maartay hadaad muujiso iyo cabusnaan iyo inaad awood leedahay diinta ilaahay salagu matalimaayay nabigeena kaleey salaam kaana miskiinan كان يكون مع المساكين يأكل مع المساكين وأن صفات الله يشاء قف مسكين تواضع إنه نقضه بل مرك قد حليها ولا له حليها وسا قرآن كلام النبي يقول له الله قالوا حوران شري وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين قالوا النبي يقول حكوا لي هاي تو إليك أنا كي حق السجن تواضع فيري حتى قال النبي ما أرنا أيوه مسلم بأنا كحق بدن دين تخصك قاضي لكن حدثنا قفك قلبي سنا حنانته لأن قفك قلبي سوى الله حنانته وأهمية دينته إلا هاي وحكمنا ولا لا يحلها مهمك سلامة صدري عندك مسلمين تا قلبي جودا استقدقان واسع أو ينادو قلبي واسعة أو قف مسلم كأي حملك تد دوتسي وناقصة استغنى وحادو حديثك معروف كأها النبي عليه الصلاة والسلام يتدعو حكسته قلي دوانا ننعو الجنة صحابي وحلوان وعرقنينك سوى قلي معلومات النبي كوعلي عليه الصلاة والسلام نبى سوق الجنة ما استحاب كوعلي نبى وحلي وحان سيرتورو نكاني meelaha khayrka lagu ma arko nin diin badan yaqaan maaha muxuu tolo khayrka ku qaat waan dabagalay inaan soo gaaro wuxuu ku qaatay arinkan markaas ninkii waxaan ku arkay wax amal oo icaajay ma wala haba ninkii waxaan ku nin maxaa sameeysaa nabigu wuxuu alayhi salaam jannada galisay wuxuu yiri inta aragtan Muhammad sameeyay saxaabigu iska tagay markuu tago wuxuu yiri ka waxaan ku sheegay waxaan sameeyay oo kaliya waliga habeen ma seexan illa qalbigayga oo qof dadka muslimiinta oo dhan nadiif oo amooyaan dadka muslimka oo ana waafiya oo qalbiga aan qof mana xiqd wahaynin baan seexan jiray nabigu ninkaas ninka wuxuu yiri taas weeytaan awoodi kari weynay adigu jannada ku gashay wala la waa muhiim dadka muslimiinta ah qalbigooda waasic inuu ahaado balaaran u dul qaadan kara qofku wax ka sheega afin kara ma saamixi kara laana janna ilaaha lagu mutaysanaya iyadoo la sheegin amaashi farbana salaadii soonkii xajki baa wuxuu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam in jannada lagu mutaystay qalbiga waasica waxa wala kamida حسن ظن إن قف مسلم كأ الملاجس أو ناجسور ظنيجس مليهس هذا حمانكو عرفته وأنا أسمع ثقيل الله ذا هاي قف كأني ما عرفته وسمين كرحمانت وأنا مركز تقال عندنا حمانتي العفسة أدوس ميسا عفسة تقال فربدا لأن حسن مع علي وحلي رضي الله عنه وأرضاه لولا أن الرجل شتمني في أذني هذا واعتذر في الأخرى لقبلت عذره هذا يقف يعايو ودكتها يوم قشي عايدة هذا دكتور وعفس يوم قشي إنه ما وكنقضي وعفي لها إسلامي شو تاجيه قف كده دكتور يوعي بعد ما تروح يقولي يعني ورا لقاه وأنا أقول داراي ذني وأنا اسمه الله يال قف كسر نجي مذا
وحوليه حمان كدعسة وحوتي عليه حمانته إن لو أسطره سيدا أوتش عشان لو أسطره تلك المسلمين تحمان تعبته أسطر إن بدن هكون استنذني جاء إما لها لأن أنت بدن ملوه وبين بقول بدنيه ولكن مكانه أديك وحالات دون ممكن إنك داعية إذا ما تقدر شيء هي البسالة غير شيء لا يسال غير شيء وحاسس شيء شغال هذا ورسته داعمتي داعي وحال دونا يا سيد النبي إنه عليه الصلاة والسلام سيد يقف وحوق شيء وأنا اللي كذا وكذا أنا يقول عيبت على سيد يقف وحوق شيء وحاشاه عليه الصلاة والسلام عمل النبي لكن حين بريا ورقف روى عيب على الله ذاك المسلمين تأملها وهجاتي هذا حماك على تقيل وسماء أنا ولا لا وحلا لا يا بارنتي قف قصنا جميلة شيخ يا عالم يا عابد يا عامي نينكس تقولي جيسا وحكسوا بحياة حمان تقولي وكسب بناك اللي كيلا فضحينا ما حكى هذي إنك وحنا جم ينقلي واي وأمان جوا ذاك المسلمين تها نبينا وحليه عليه الصلاة والسلام قفك المسلمين تتوقع عيبته ولا حمانته ذا إلى أول حكومة فضحية قولي جيس حتى المسلمين تعفسوه أو تلقاته أو تسامحه أو عيبته آخرسه هذيك اللي هو حاصله عيبته لكن هذا كشقيسه إن ما تون عيب كشقيسه وما تون هذا ورثه وما تون كشقيس قط بني آدم وحال وجاته هذيك أنا وحاله مقيه قرياجي وليبا أذوق بني آدم بعتهاي وحافين سواء محدود لكن هذيك عيبته هذا وحافينا إله سبحانه وتعالى إلهنا أول ماذا دفاعه ولا يا مركو إنه كده قالنا عفسك يسامحه وحنكسر قبينا يا ولا ليال عفسك يدلقاتك يسامحه ومن أساسيات الدعاة قفك الدعاة اللي أنت الشيء وحيالها أساسيات كأوتها وحالتون يقف مسلم كا إنه كم بين هذا نظيف كهذا حدود النفس وحلي هذا أنا مركو شاكين هاي أنا يقول هذا مركو حشاك أنا يقول هذا هذا محمته هذا مسكين ضعيف هذا داعيته وحالتون هنا استاجته ما يلقف داعي ومضى أو نختاروه لين نختار كبيرة ويا مارت نختار قوي معنا ولا ما نبالو شجعنا وحيس كده إنه كده ويا قفك داعية هدي العايو يهدي له ماغو يهدي له جارسيو أنت وحبه أنت القاد وحارعك تولى على إنه أحيانا سنين عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ودو قال أنت كرمني لكن أنا يوقف مسلم كيدي بايا أما قعد عندي بيسوي كسي ودو القاطع النبي أنا وحال أمره ولا ليال عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي نبي محمد ودو القاضو كو إلهي كو عابد يا هذين يا معلم النبي يدبو حوقي يمتري عليه الصلاة والسلام سحابديس إلى لجارسي إلا توما هوينتي عليه الصلاة والسلام هوينتو قبين إلا توما بعنبي لجارسي يا كشقيي منافقين إيه الصحابة قال كم ذا قف المسلم كأمريكا وأنه يسكت يا أنت بدن إنه نذيف كي هاي أنا نيدا إيه هذا كود بنتيسة إيه حنتا يستمح لها أنت إنه نذيف كي هاي وحنكسر كولا ولا ليال أثر أي صور أو سيركو وحيليهن معاوية رضي الله عنه وأرضه صحابية إيه عبد الله بن زبير وصحابية أو حيسكو قبتين لما بير إلى هاي مدينة وحكوت عليه بير ولها عبد الله بن زبير إيه بير ولها معاوية رضي الله عنه من كستنا وحكى شقيني سيد الشقالة شقاله معاوية بير تسبا وحي قال بيرت عبد الله بن زبير عبد الله بن زبير قاعد بو حناقي ورقد بو قري وليه هاي ورقد عن حكى سعتا عبد الله بن زبير ويك إذا شيء قوادي نبي وكو أمانة عليه الصلاة والسلام ذات النقادتين وعلى أصمة أبي بكر وحيكون سعتا معاوية هو يدي أيا هيد نك يعونوا تشيرتي ذلك بيركود ساس أقرايا يا لو قرايا معاوية صحابية ذلك شغالة على أحد وحيسوق لهم بيرتي ذا هذا مرضى بسوقان لي ولا كشأن هذه أي واحد أحمر دونه معاوية وقد وقاضي أمير المؤمنين والمؤمنين تقدم بأميرية وقد بكل تجي وحوار كد دقنين يهندد له ساقري أولي ولا ليه هو كل عالمية وحوار دودي ويل كيسي وحي ويلك ورقد فيري ويلك سرقدي وأخريي مسابه أو سحابية وأمير المؤمنين باو حالو ساقري جودين يدقال وحي عاب وحنك أمريا نجا عبد الله بن زبير وحاول عيدا بلا جوس عليه كل شيء دماغ كسر المدينة شيء سيو كوك المدحس أوقان لأن وحاول عبد الله بن زبير وحسن ما من سحابية إن لي إذا ضرب بيتها كرب حشق عليها لي ولا كشام وحكوته يويل كيسو سيو حلا شيء كرا هذا أمير المؤمنين سحابية نك قلت على وكان وحين مايا وحكي في عمان هيا ورغب بقر وحليه هاي كسعة معاوية رضي الله عنه وارضاه كسعة عبد الله بن زبير حدوك سوق على ورقة عسي
beertayda iyo beertaada shaqaalahaaga iyo shaqaylahaaga isku darso adiga iskale ilaah baan ku dhaartay haddii adduunka oo dhan aan isku qaban lahayn la salamtuha ilay wa faraanka qaadaha maxaa yeelay jannatullaahi carduha samaawaatu wal ard waxaa dhiman oo la sugayaa janno ilaahay oo balarkeedu yahay ciidka dhulka inta u dhaxaysa ayuha alikhwa hadalkan waa hadal aad u cajiib badan ninkii saxaabiga cabdullah ibn zubayr hadalka uu qoray shaydaan baa ka shaqeeyey lianna laba shaqaalo beer ku wada jira in la kala celiyo macno weyn ma laha laakiin inta badan shaydaanku wuxuu ka shaqeeyaa waxaa macnaha inuu buunbuuniyo muslimiinta madaxa isu geliyo wixii uu tafkhimiyo wax weyn ka dhigo waxaa aad u yar marka qofka daaciga inuu fahmo shaqada shaydaanku waxa ay tahay laakiin Muawiya radiyallahu anhu waa markay gaadhay wuxuu gatay shaqada shaydaan inay tahay cabdullah ibn zubayr wuxuu soo qoray cabdullah ibn zubayr markuu qadi arkay wuu aad buu ooy macna isagu wuxuu qoray iyo waxa loo soo qoray wuxuu aaday Muawiya oo jooga Dimashq markaas uu wuxuu yahay amir al-muuminiin inta madaxa ka dhunkaday ilaahay ummadda ka wakaxay khayr ma tahay waxa uu qofka daaciga ah inuu ninkaas ka noqdo taadi xisaasato wiil baa saayiri gaab baa saayiri wala iga hadlay daa'imati nabi maxamed alayhi alayhi salatu wala hadlaya wala wacinaya wala horimanaya hadaa daacita ku talaga laakiin ilaa waxa kaaniga leema taaban karo wala uu taabanaya wala uu rifaya qofka muslimka daaciga waxa laga doonaya walaalayaa inuu muujiyo dulqaad far badan bal nabigeena alayhi salatu wasalaam isagoo rasuulka ilaahay baa waxa dhici jirtay in khidal loo dhigo lagu dilaayo ninka yahuuda bal in saf loo liimaado bal nabigeena alayhi salatu wasalaam maka laga qaxiyay isagoo jecel oo dagaal looga qashay saxaabadiisii isagoo xoog leh buu soo galay maka alayhi salatu wasalaam markaas wuxuu u tagay nimankii maka kula dagaalami jiray meesha ka saaray markaas wuxuu ku yiri maxaad iga filaysan inaan idhaahdo markaas waxay dhahaan nin waa khayr badan noqo nimankii nabiga cayriyay oo dilay oo ka saaray maka markuu u yimi isagoo awood wuxuu ku yiri idhabu fa antum tulaqa iska tago fasaxantiina ya xamil kala awood inta leey ninku dilay oo ku cayriyay oo kula dagaalamay inaad taado fasaxanta ayuha alikhwa ahmiyaadka ay leedahay daaci waxa kamida inuu in badan isku dayo inuu dul qaato oo xafiyo kayfa la sidoo dul qaadanayn iyadoo nabigeena alayhi salatu wasalaam maalintii uhud laga carray gaalada looga carray waa la dakhray iligiisa la tabiyay saxaabadu ka carray nimankii nabiga ka carray alayhi salatu wasalaam baa waxa lagu leeyahay fi surati al-imran istaghfir lahum ila hadna fuwaydi wa kullu shalaka carray baa maanta waxa leeyahay ila hadna fuwaydi wa aafihim aafina maxamed wa shaawir hadan la tasho inaba wad ma wadi kana nin maanta kaaga baxay safka oo kula dagaalamay ma awoodo inaad cafiso oo u duceyso oo iba la tashato quraanka ilaahay nabigeena amray alayhi salatu wasalaam nimankii saxaabada ahaa ka cararay oo ku baneeyay safka oo gaalada kaaga cararay hadana dhaawac lagu gaarsiiyay nimanku muuminiin bay ahaayeen khalad baa ka dhacay ilaa dinna fuwaydi iska cafi hadan loo shir inagu waxaan xamil karnaa walaalayaal dhib yar oo soo gaadhay maanta oo dhan hebel saas yiri waxa ugu sameeyay waxa soo wada daa'ima noqon karto walaalayaal nabi ilaahi yuusuf alayhi salaam baa wixii qorsheeyay walaalihiis in nafta laga jaro maadaama abrood ka jecel yahay ninka aan dilay ku dilnaa cilban ku ridi doona waxa la taqriiriyay walaalihi go'aan ku gaareen in laga takhluso nabi ilaahi yuusuf alayhi salaam nabi ilaahi yuusuf markii meeshii lagu riday ilaahi subhanahu wa ta'ala kun ka tariy كوكان سجى معمولة سجى أول عد ورا تاجرة عد ورا دلية إلهي ما هو صندوق عين يجلس واحد معين إلهي وحوي مكي عيك الورد هاي قصة وذكورها من دون تامر كله نبي الله يوسف وحيم عليه الصلاة والسلام استجى أمير لويم أروح قدرن هايستا وأدون قدرن هايستا ولا ليس مركز يجرم وايم مركز يستشجع وحيم مجران إنسان يوسف إيواك سايشان وحدنا أنك أنت ليوسف والله نحام نيك أنا كوري نقولك ميا ما أنت مدحوينه ورمع عقلك تاكينك ما دي يوسف والله إني واخس رزقه يعف محكوين النبي يوسف عليه السلام مركوش كان في آخر السورة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يوتري حمان تودن شيطان إلى وحسك كاني ولا راهي كبعد شيء فعلك الشيطان وكشقي نمانك لما دليك أوقع شيء وحنبي الله يوسف كري عليه السلام الشيطان وكشقي لأن الشيطان مركوي ما نيو وحكوي ما وجه قروح بدن نين كانوا كدلمي حمام بكوسمي أوقف في عم باطاي قور داعياتاي نين داعياتاي إلا وحمي يماها وحكوها وجه قروح بدن نبي الله آدم وحكوا لي يا حواء إني لكم على من الناصحين دنتنا كشقينا
والله هذا كودنا هنا شرفت هذا قيمة كشقينا فلا وحي كاشت ولا وحبو كاشي شيخ فلان باتاك سلا واحد يقول بكرة وحيالها أصلا شغل شيء داوي ولا ريال إنه بدنا اسكت دينه إنه كسفونه نيك داعية أنا وحوتاجي بوس نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه بوس كاستاجو طرقات كي حلمي يستمر كي عفس كنت وكشقيه وبالله التوفيق. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.